السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان umada Soomaaliyeed walaashina amina laka official caaw waxaan idin wadaa digniin yar oo ay soo dirtay muxuu ahaa gabadh Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo ay idin sheegayso arrimaha hadda ka dhaca Turkiga Soomaalidiyo intay Turkiga wada aadanaysa soo wada qalqalaya ama macnaha leh waa soo qurxunaynaa oo qalitaan gelaya iyo dhaqaatiir aan jirin oo Turkiga isku sheegeen inay dhaqaatiir yihiin oo Soomaalida ay ku dhacayaan iyada nooga waramaysa masha Allah Ilaahay khayr badan ha siiyo siday maanta uga digtay umada Soomaaliyeed dad badan baa dhibka ku dhaca qariya laakiin masha Allah way noo sheegtay amiirad khadra dhibaatada ka soo gaartay qalitaan ay ugu tala gashay caloosha inta laga qalo la yiri waad ku caatoobaysaa caagada khatarana la geliyay caloosheeda qofka hadduu Ilaahay caafimaad siiyo caafimaadkiisa inuu maaragtay cudur ku bedesho ma aha caagada caloosha la dhexgeliyo kansar baa laga qaadi karaa dhibaato laga qaadi karaa iyada laftirkeeda sawirka way soo gudbinaysaa caloosheeda markii hore caloosha sidee u cadayd oo qurux badnayd caagada marka la geliyayna madow bay isku bedeshay way ka shakisan tahay waxay tiri inay dhaawac gaarsiiyeen baan malaynayaa sakaraad bay ku noqotay naftaa ka bixi gaadhay ilaa ay laba maalmood gudahooda ay tiri halaga bixiyo caagad beena caloosha dhexdeeda loogu dhexrido la yiri waxay ka ilaalinaysaa cuntada badan kadibna waxaa la siiyay diet wax la yiraahdo inuu qofka cuntada iska ilaaliyo waxaasoo dhan qofka iskiisa uu samaysan karaa isagoo aan la qalin marka arrimaha hadda Turkiga ka socda iyo Soomaalidan ku sii qulqulaysa ayaa looga digayaa intii dhaguhu duleelaan ama wax maqlayaan marka insha Allah ka faa'iideysta hadii la yiraahdo haddii aad u baahataan videogeeda oo dhameystiranna waxa uu qoran amiirad khadra podcast waa qoran insha Allah haddaad hore u aragteen haddii kalena magacaas u qoran waad eegi kartaan hadii la yiraahdo YouTube-ka videogeeda wada dhameystiran qayb yar baan ka soo qaadanaya anigu hadii la yiraahdo insha Allah si aad ula socotaan hadii la yiraahdo كده أيه وقعتي ما تصنع لي العكس ده صبايا ذكر العك إلى سيدته سيطرنا أكيد وحياة بالجليلة يا وحوارنا يا شكون يعرفكم كان عتوبيسة عقد أكتر يا لا ده بكين يا يو already بدوين ده وقت كتير ديسكين وقت خاصة ده مكان إن هذا استعماشي وتقاعدت يجيب الصومال وحيد ولا بروسيس هو تهاجري أو بحكي ليه فهو كان عروشه وبلغوه ده واحد عاتينا وكما أتوقع سواء على الواقع waa cuntada la iska ilaaliyo un beleeda qofkan uu sameyn kara isagoon la qalin afar kun oo Mareykan afar kun baa laga qaaday iyo tigidkii ay ku dhooftay waa iska 6,000 iyo macnihiisa umada Soomaaliyeed Turkida aad iyo aad baa loogu dhacaa dal islaam ha ahaado tuugadaas tuuga ma laha toos ku dhacayso waa dad aad ka nabadgelaysid aad ka badbaadaysid sida kale balse khiyaam shilinkii kaa galana bambii hadduu gacantiisa saa u galan 100 sano aad sugaysaa waa si aad uga tagtay waa kala dhoofaysaa la kulay turki shilin kaa galay Allah ha u naxariistaa kulay marka waxaan ilaahay umada Soomaaliyeed ka feejignaada iska ilaaliyo walaalayaal ha tegina iyo noocyada la idin gelinayo waxa haba yaraatay waxba ka jirin videogeeda soo fiirsada oo dhameystiran amiirad khadra u qoran podcast fanaanadii weeye ku jirtay riwaayadaha Universal laakiin dib yaan la raadsanin amiirade dadku iyaga dib ka raadsanaya badanaa صح صح
نعم lagama yaabo inaan kula taliyo qof dambe intuu tago turkiga inuu isweydiyo wax la mid ah soo samaysto aniguna from now diet-ka muxuu aniga hoostayga soo geliyay oo lacagtayda ku cumayna yaa anaa gacantayda ku samaynaya waana tusi doonaa anoo 15 kilo ku tuuray صح ما شاء الله waa innaga oo gacanteeda isku caatayna oo ka xaaftoona turkida beenta iyo tuugada wata assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته